السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu ka hadli doonaa su'aal soo noqnoqotay oo ah sidee loo horumariyaa channel-kaaga aad u heli kartaana dad badan oo kugu xidhma. marka xalqadan waxay ku saabsiisan tahay qofkii channel leh ama YouTube-ka ku dhaxla channel oo raba inuu horumariyo channel-kiisa aynu siinaa furayaasha uu ka horumarin karo channel-kiisa iyo waxa uu uga dhigi karo mid caan ah oo dadweynaha iyo bulshada dadkiisa ah ka dhax caan ah. marka ka fogaan xalqada. ugu horeyn horumarinta YouTube-ka channel-ka aad ku dhex leedahay waxay ku xidhan tahay kolba waxa uu channel-kaagu qabto. haddii channel-kaagu uu ka sheekeeyo waxyaabaha music iyo videoyada ama warar gaar ah oo uu leeyahay sida Home Cable TV oo kale, waa qaar oo kiisaska kale waa ka gaar oo isagu keliyata waxa uu ku xidhan yahay dadweynaha videoga daawan TV-ga ka daawada. waxa aad u soo gudbiso markay jeclaadaan bay channel-kaaga booqan karaan. balse haddii channel-kaagu waxyaabo kale oo gaar ah uu ku xidhan yahay oo website si gaar ah u leeyahay oo ka madax bannaan waxyaabahan warbaahinta ka madax bannaan ama TV-yada waxa laga daawado ka madax bannaan uu yahay sida kanaalada tiknoolajiyada ka hadlo oo kale, waxaad u baahan tahay in aad raacdo dhowr tallaabooyin oo aad fahanto kuna dhaqanto. marka tallaabooyinkaas waa furaha guusha channel-kaaga. tallaabooyinkaas ay bilaabeynaa markoobaadka ka hadal wax muhiim ah oo hore aan looga hadal. wax muhiim ah aan hore looga hadal ayaad ka hadlaysaa, sababtoo ah dadku waxay jecel yihiin waxa cusub. sida maahmaahda Soomaaliga ahaydna waxay ahayd wixii cusub caalamka jecel. marka waana daydaydaa video aan hore looga hadal geygaaga oo aan dadku hore u maqal isla markaana ay wax ka korodhsan karaan, waayo dadka soo booqanaya aqoon inay korodhsadaan ay rabaan. marka waanaad ka hadashaa wax muhiim ah marka koowaad isla markaana aan hore looga hadal, waan isku daydaa. mar labaadka run ka sheeg waxaad ka hadlayso. dabcan dadka qaar waxay sameeyaan videoga magacaasayn hore uga soo hadalay magaca iyo isma waafaqsana waxa videoga gudihiisa ka jira. magacayuu soo qorayaa, marka videoga markaad ku tagto mowduuc ka duwankii hore ayuu ka hadlayaa. marka waanaad run ka sheegtaa waxaad ka hadlayso. khiyaano iyo been ayaa ka maqnaanaysa videogaaga, warka waanaad ku dadaashaa inuu run ka hadlo videogaagu. number 3 caddee faa'iidada iyo faa'iida darrada waxa aad ka hadashay. dabcan dadka qaar waxay sheegaan kaliya faa'iidada uu waxan leeyahay, kadib meeshii waxa ka baxda faa'iida darradii. qofkii markuu soo galo faa'iida darradii isagoon ogeyn ayuu ku dhacdhacaya faa'iida darradii, sababtoo aadan hore ugu sii sheegin. kadib faa'iida darradii adoon u sheegin markay ku dhacdo qofkii waxa uu sameeyaa akhlaaq xumo ayuu ku kacaysaa, sababtoo aad hore ugu jeexay wadadaas uu ku soo caayay qofkii. marka waa in aad cadaysaa faa'iidada iyo faa'iida darrada labadaba si qofkii uu iskaga ilaaliyo ama uga maarmo in case intuu kaliya videoga ka daawado uga maarmo habka in case aanay ugu dhicin haddii ay dhacdo ayaan u jeedaa faa'iida darro. adeegso thumbnail qurux badan. dabcan halqadii hore waxaynu kaga soo hadalnay waxa uu yahay thumbnail, uma noqonayo thumbnail waa sawirka dul saaran videoga. marka sawirkaasina waa muhiim, wuxuu tarjumayaa videogaaga, waana nooc ka mid ah xayeysiiska videoga. marka waana thumbnail qurux badan oo habaysay aad isticmaashaa oo aad soo qurxisay isla markaana aad dul dhigtaa videogaaga. thumbnailkaasi waa muhiim. number 5 u door videogaaga magaca ugu gaaban uguna dhow baadhista. dabcan waa qodob aad iyo aad u muhiim ah oo laga yaabo hore inaydan uga fikirin. marka video markaad samayso waa inaad u doortaa magac ugu gaaban marka koobaadka, sababtoo magaca gaaban waa magacay ugu fudud ee qofku qori karayo. magac dheerood kaliya taqaana hadaad qorto qofka baaraya hadhow muxuu ku baaray ma maskaxdaada oo kale ku jira, waa maya. marka waa magac gaaban isla markaana u dhow baarista. u dhow baarista waxaan ka wadaa mowduucan qofku baaray, for example hadduu ahaa sida Facebook loo sameeyo, dabcan u soo dhawee mowduuca waxaad tiraa sida Facebook. مثل Facebook wixii ku saabsan yahay sameyntiisa, Facebook iyo sameyn sida loo sameeyo Facebook dhawaad kadib mowduuci waanu gaaban yahay magacii isla markaana uu u dhow yahay mowduuci, qofkuna wax uu ku fikiri karayo. sameynta video Facebook xataa hadduu yiraahdo ayuu soo tuuraya. marka kaas waa u door magaca
ugu gaaban uguna baadhista dhow. Adeegso taagis u dhow videoga, waa qodob isaguna muhiim ah. Taagis waxaa la yiraahdaa haddii aynu ku dhufano imika upload oo aynu ku niraan select file to upload, kadibna aynu file ka soo qaadno computerkeena oo aynu furno. dabcan waxaad aragtaa magaca file-ka halkaas uu gelayaa, description-kuna waa halkan, tagisna waa halkan. haddaba tagis waxa weeyaan erey videogaaga lagu baari karo, hal magac oo yaan videogaaga lagu baarin. magacyo fara badan halkan ku qor oo u dhadhow oo lagu baari karo. for example Facebook baan rabaa, waxaan qorayaa Facebook, sida loo sameeyo Facebook iyo aan halkan ku qorqoraya tagiska, enter baan siinaya iyo waxyaabo sabab fara badan, kuwaas ay leeyahay tagis. marka kuwaasina waa muhiim in aad samaysato tagis. waxa kaloo kamid ah ku qor description-ka waxa ku saabsan yahay videogaagu. description-ka dadka qaar waxay ka tagaan wax maala yacniya ama video ka yimi kanaal halka ayaa halkaas ah, waxaas oo kaliya ay ku qoran oo way ka tagaan, ama waxyaabaha kale ee ay ku qoran linkiyo kale si daba dhigdhigaan oo fara badan. laguma diidayo linkiyada, laakiin waa inaad dhigtaa description-kaaga waxa uu videogan ku saabsan yahay si loo akhriyo. dadka qaar baan daawanayn ilaa ay akhriyaan. xayisi kanaalkaaga waa qodob muhiim ah, oo inaad xayisisaa kanaalkaaga isla markaana qodobka ku xiga wuxuu leeyahay ugu sheeg dadweynaha Facebooka in kanaalkaagu hawshan qabto. kanaalkaagu waxa uu qabto uga sheeg Facebooka si dadka halka uga soo arkaan, waayo dadku ma wada oga kanaalkaaga. sidoo kale waxa kamid ah ku dadaal updating-ka kanaalkaaga, inaad kolba wax cusub soo geliso ku dadaal, markaas ay dadku arkayaan isla markaana ku soo xirmayaan. finally ilaahay tala saaro. intaas ayaan kusoo gabagabaynaa xalqadeena maanta. intaan xalqada dambe ku saabsan YouTube-ka ku kulmi doona. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.